runtii waxay tahay maanta farxad weyn oo aanu ay maanta qalin jabinayso halkan ku qalin jabinayso dufcaddii tobnaad ee baratay culumta ama aqoonta badda iyo kalluumaysiga oo ka qalin jabisay jaamacaddan shalay farxad kale inoo ahayd oo waxay ahayd maalintii aanu ku dhawaaqnay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare iyo kii dugsiyada dhexe maantana farxad kale ii tahayoo waa maalintii labaadoo aan ugu dabaaldegayna halka kan ardadii baratay culumta badda ee jaamacadda ka qalin jabisay hambalyadaasaan u dirayaa dhammaan ardada iyo waalidiintoodba macallimiintoodii iyo maamulkii jaamacadda intaba waxaan u dirayaa hambalyo waxaan leeyahay guulaysta ilaahayna meel khayr qabaan idinka baryaynaa mudane madaxweyne sidaynu la wada soconno sida ku cad nidaamkeenna waxbarasho ee aynu buuggeena inoogu cad xisbiga ee aynu ku howlgallay dowlad ahaan waxbarashadu waxay u baahan tahay reform bay u baahan tahay waxay u baahan tahay ilaa laga soo bilaabo iskuulka hoose KG-ga la yidhaahdo ilaa jaamacaddeennu waxay u baahan tahay reform bay u baahan tahay level kasta ay joogto waxaynu u baahannahay inaynu waxbarashadeenna wax badan ka bedelno eegno qaabka u shaqaynayso sidaa guddoomiyaha tacliinta sare sheegay in maanta la yidhaahdo qof baa ka qalin jabiyey dugsigii sare iyo jaamacaddii ka wada qalin jabiyey wax la qaadan kara maaha waxaa muhiim ah in aynu eegno qiimeyn ku samayno jaamacadaheenna dhammaantoodba hadday tahay macallimiinta iyo hadday tahay ardada dhigata dhammaantoodba inaynu ku samayno qiimeyn rasmiga ku samayno oo aynu eegno ayaa naga goor madaxweyne sidii noogu cadba dee qorshayaasheenna inoo yaalla waxay noo cad sida inoogu cad barnaamijka in la sameeyo imtixaan guud oo jaamacadaha lagu galo ayaa inoo cad oo aynu jaamacadaha o dhan markay ardadu gelayso ay sameeyaan one entry exam ama imtixaan loo wada galo jaamacaduna ay taa ka midoobaan waxay noogu cad in la sameeyo cilmi baadhisyo aad u badan oo ay haddeerto laga dhawaajiyey sidii wasiir ku-xigeenka kalluumaysigu uu sheegayba inay hadda bilaabeen taasina waxay ka mid noqon doontaa in aynu riseeshyo badan ama cilmi baadhisyo badan ku samayno meelaha badan madaxweyne waxbarashadu waa furaha horumarka dalku gaadhi karo haddaynu waxbarashadeenna hagaajinno oo ay hagaagto wax walba way noo hagaagayaan waxbarashadu wax walba iyadaa ka horraysa qofku markuu waxbarto ayuu gaadhi karaa meel ama waddankiisa hormarin karaa ama meel kasta uu ka soo barbaari karaa laakiin waxbarasho la'aantu waxay keentaa in dib u dhac iyo inaan horumar aynaan gaadhin waxaa laga hadlayay faa'iidada badda ku jirta faa'iidada kalluumaysiga ku jirta faa'iidada waxbarashada ku jirta laga hadlayay haddaynaan wax baran oo aynaan dee ma baranayno badda waxa ku jirana runtii arrinkaasi wuxuu aad iyo aad u muhiim u yahay inaynu waxbarashadeena tayayno hadday tahay tayayntii iyo hadday tahay quality-giiba mudane madaxweyne waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa guddoomiyaha jaamacadda badda wuxuu ka dhawaajiyey inay galeen heshiisyo caalami ah sidaasna annaguna wasaarad ahaan wixii nagaga gudboon aad baanu ula shaqayn doonnaa insha allahu wixii nidaamaha jira ee sharciga waafaqsanna waanu raaci doonnaa waxaanu aad ula shaqayn doonnaa heshiisyada caalamiga ah aad baanan uga mahad celinayaa guddoomiyaha jaamacadda heshiisyada caalamiga uu galay iyo horumarka uu ku tallaabsaday runtiina wax weyn oo la taaban karo ayuu guddoomiyuhu ku dhawaaqay